هارون الرشيد وحوها دولة العباسية حلق يذيبها وحربنا وقرن قل بعض أخ مدحيسي waxa u yimid nin dhakhtar oo Roomana nin dhakhtar oo cadaan u yimid markaasuu la kaftamo wuxuu ayuha al-malik baqoro buu ku yahay quraankiina waan eego cilm al-adyan buu ka waramaaye cilm al-abdan kama warama buu cilm al-abdan waa dhakhtarnimada quraanku wuxuu ka waramaa buu markaan dhageystay al-adyan bas aakhirada jannada shariicada ahkaamta salaada zakada hajka waxa uu ka warramay buu quraankiin laakiin dhakhtarnimada kama warramay buu quraankiin Harun al-Rashid ayaa yiri Allah u naxariistay aayad barkeed ayaa Ilaahay cilmiga dhakhtarnimada oo dhan uu kaga warramay buu aayad barkeed iska daa aayad dhamaystiranay wa aayade kulu washrabu wala tusrifu inna Allah la yuhibbu al-musrifin innahu la yuhibbu al-musrifin kulu unaba Ilaahay cuntada washrabu abba ولا تصرفوا لكن أكون إسرافنا بإلى حيري آيات دي بالله شرح الله معناه نكي دخترك أو حيري والله وارون بيقول القرآن كه ضاع وحبك ما تجين بيقول وحبك القرآن كم مرة بينبع وحان أنكو أن دخترنا ماذا أن كوب قاعد نبيقول أقان وحقيقة دي أن صوتها بني حنونا ده بني آدم كقبطة أردن وحي كبل أمان وعلوش كبل أمان ما ملأ ابن آدم بنبي يقول هاي وعاء أشر من بطنه بنبي إن آذن مبوحين والكشر بدن علوشيسا هدي كمان مار ميسان عنتي بنبي يقولي وكل عنتي أعب كمان مار ميسان إن يرى دبركات كنت يرسان عنب النبي يقوليو علوشينا صدحوا قيبية قيبنا بيها وقلت تلقلا قيبنا عنده وقلت تلقلا قيبنا النفس وقلت تلقلا يهودا لأن عرب أيا الله شاقي وما ركتاني دين الإسلام كآدان وقونين وعربتها اسكع علمانيين تايا لكن مسلمة دختر بو تجي ودك جرماني xanuunadiisi markii la baaray ee checking lagu sameeyay waxa la ogaaday inuu xanuunkiisan dhanba uu ka bilaamayo caloosha marka ninkii dhakhtarka ahaa ku yiri carabiyada ma taqaan luqada carabiga ha waan aqaana akhrisan uu keenay maragtaanay waa ninka professorka ee jarmalkuna waa wadanka adduunka dhakhtarnimada ugu horumarsan baa la yiri professor dan ayaa kula eeg buu halka akhriso luqada carabiga hadda taqaan markaas waxa ku qoray ilaa qaal nabiy oran maayaane qaal doctor Muhammad bayda markaa tabiib Muhammad wuxuu yiri ina aadan mabuuxin weel ka shar badan calooshiisa xadiiska hadda aan akhriyay nabi akhriyay markaa buu ninkii uu sawirtay markuu masaajidii yimiday ayuu dadkii weydiiyay ku yiri war dhakhtarkan carabta ka dhashay ee dhakhtarada adduunyada ugu qiimo badan ee ugu qaalisan ee ugu aqoon badan xafiisyadooda erayadiisa ay ku qorteen in annako caraba aan garan laanahay waa kuma markaas lagu yiri bal erayada soo qorateen tus xadiiskii nabigu akhriyay markaas lagu yiri ya jaahil murakkab ma nabigaagi Muhammad alayhi salatu wassalaam ayad garan weyday baa lagu yiri qowlkiisa wallahi dhakhtaradu maanta adduunka dhakhtaradu way bateen hospitaaladuna way bateen daawaduna way badatay bukaanku muu yaraanaya mise uu biiraya bali sheega وسي زيادة كنت سنكور 8 سنة كور waxa laga yaabaa magaalada Baydhabo in la maqli jiray oday hebel la yiraahdo xanuunsan hal loo duceeyo maantana aqal walba waxa laga yaabaa haday 7 qof ku nooshahay 5 baa bogto xanuunsan markaas dhakhtaradii khaatiyaan billahi bay noqdeen dawadiina qish bay noqotay qish laba qolo qishka ka shaqeeya waa ganacsatada raashinka keenta raashinka keenayana waa raashin kimikaal waxay noo keenaan qolada dawada keenaysa dawo sax ma keenaanba illa man rahima rabbi dadna dhakhtaradii way daaleen markaas dadka kula taliyaan laba shay waxay warnaa cuntadana iska yaree socodkana badsada magaalooyinka caasimadaha adduunka waxaad arkaysaa ganacsatada iyo tujaarta iyo madaxdii odayaacaysa iyo dumarkooda reemiga ka warrama reemiga orad muu baahan yahay war muu baahan yahay iyo caafimaad badan reem magaalka caafimaad badan mise reem baadiya maxay ku caafimaad bateen waa labadaas sifay leeyihiin cunto yar iyo socod badan bay leeyihiin shaqo badan bay leeyihiin waxaa la ogaaday nolosha dabiiciga in loo noqdo mooyaane noloshan adduunyada leedahay waa horumar oo gaadhigaagii baa isfuraya oo aqalgaagii baa isfuraya oo sariirtaadii baa islaalaabaysa oo diyaaradii baad caalamka meel walba ku geynaysa oo adduunka maqal iyo muuqaal baad kula xidhiidhaysa
oo zoom baa shararka lagu galay waa la horumar leeyahay horumarkay gaareen may corona iskaga celiyana corona ilaahay ku salido dhaqaalooga ilaahay dhulka ku galiye oo fasaadkii la wareegayna la yiri edeb sameeyo aqalada fadhiiste zinadii iyo fisqigii ay la wareegayeen tuuristigu aqaladooda ilaahay fadhiisiyay wama nursilu bil ayati illa takhwifa markaas ay naga dhaadhiciyeen waa tabiici xanuunkan waa xanuun tabiici oo cimiladii baa xumaatayo maaragtaane chemicalkii adduunyada ayaa qabsadayo dadna xanuuna xun baa dhalanaya tabiici maaha wax tabiici ma jiraan wax walba waa aayad ilaahay weeyaan wama nursilu bil ayati illa takhwifa lidalika wala layal رجوع إلى الإسلام ما أنت الزمن كان جوجنا حل كلام مجرى إلا الدين الله صلى الله عليه وسلم قال هذه دتك عند بس السعودين أي دربي ماذا حقول لفت قال هذه بقول إله النوبرية لكن هذا كورونا دوك ككلا قيلسية نن تلياني جو حال الشيء إنه يري أودي يدور كوارد ماتي أودي السماء وبحدي وقال كيف أصدق كله وسلكنا وعقولي المساجد حدا صلاتنا كلا ديرادا قرآن كان هتابننا لا إله إلا الله والكافر يقول إله النوبرية قال كيف أقول إله النوبرية مسلم كانوا يقول إله كفوا هذا حقا نصعنا مركز ففروا إلى الله إخواني وحن إلهي أنا قلنا نفسي إذا كل إلهي حقي سأل الله يعو مالك لما جرت مات دينتي أنا هنبرنو دينتي أنا هنقبصنو دينتي أنا هنكون نغنو إخلاص ضد مخلصين هنغنو مخلص ومعي والأمة هداد وحتر إلهي درتي وحتر هداد مالقبين تهي دقالها أمة وحقتر هداد عالم تهي علمك أمة وحقتر هداد مسؤول تهي مسؤولية دلقو صار ماها حلق أقل هذه سنة يسي وحلق أمة هدو هذه يسي لذلك أبي بكر الصديق رضي الله عنه مركي خلافة اللو ديبي أنصاري مهاجرين أمي ديي صدح مع الموضوع ومنبر كنتو كن نقضى أيولها أمانة ديني ونيسو عليا نكا لو ديبتا markaa bay saxaabadu lahaayeen may adaan noogu khayr badan cid ka mutaysatay imaarada ma jirto bay ku yiraahdeen waayo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo nool oo naftu ay ku jirtaa nabiga lagu yiri salaadii baa taagan markaa buu nabigu abubakar u sheegay dadka salaada ha ka bixiye markaa bay saxaabadu leeyihiin abubakarow maadaama camal aakhiradeedina anfacaya adigu aad imaam nooga noqotay nabi maxamed oo nool aad imaam nooga noqotayna adduunyadeedana maanta adigoon baan u hagaajin karaa wallaahi sida hadday ummadda muslimadu guul ay doonayso ninba ninka uu ka alla ka cabsi badan yahay baa talada u dhiiban lahayn ninba ninka uu ka salaad fiican yahay ninba ninka uu ka dikri badan yahay ninba ninka uu ilaahay uga dhow yahay ayaa la odhan lahaa kaabaa ina badbaadinaya talada inoogu dhiiba zamankana waa wadaadada kala dheeraada wadaadada wadaadadu masjidka fadhiya inuu masjid way fadhiyaan masaajida wadaadadu laakiin adu xagga u socotaa gaaladina ka hor timideen nidaamkii gaaladuna adduunka shaqayn waa xagga u socotaa markaa rujuuc ila allah ilaahay xaggiisa aan u soo noqono oo diinteena ha ka shaqayno oo dadkeena ha dhisno ummadda in la dhisa loo baahan yahay meedala wadooyinka googo'an wadooyinku hadday iska googo'an yihiin macna ma leh hadday dadku inoo hagaagaan oo dhallinyaradeennu wiilal iyo gabdhaba ilaahay xaggiisa u noqdaan oo dhallinyaradu masaajidda ay noo camiraan oo gabdhuhuna muxajabaad asturan ay noo noqdaan oo ganacsatadeennuna ay dhaqaalahooga masaajidda ku dhisaan madaarista iyo macallimiinta ku nafaqeeyaan yaa ilaahay dartii ay dhaqaalahooga u bixiyaan oo zakadana ducafada iyo fuqarada ay siiyaan horumarku waa taasaan ku dhismaynayo ogow haddii waddanku xataa sidaa iska ahaado laakiin dadku ay ilaahay u soo noqdaan oo ilaahay ka baqaan wallaahi waan liibanay ogaada laakiin haddii waddanka la dhiso hoteello waaweyn laga dhiso waddooyinka la wada dhiso dhakhtarro casriya la keeno eraboorro laynoo sameeyo waddanka dekada laga wada sameeyo oo dadku wada mooryaan noqdaan ka warrama bal ka warrama maaman horumarnay mayi war ummadda ha lagu dadaalo dacwadda waa maxay markaa dacwad addacwa ila allah dadka xagga ilaaha aan ugu yeedhno dadka diinta ha ku baraarujinno dadka diinta ha barna waxay ka dhigan tahay dadka ha dhisno dadka in la dhisa ayaa awlaayay mise dhulka in la dhiso bal iga jawaaba nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa curidat calaya badxaa'a makka la ii bandhigay buu nebigu yidhi dahab in layga dhigo markaasaa yidhi yaa rabbi ma doona iga daa adduunyadu waa 2 maalmood maalinna waan gaajoon
maalintaan gaajoodana waan ku weydiisan maalintaan dhargana waan kugu mahadin uu diiday nebigu adduunyada calayhi salaatu wassalaam nebigu inuu dadka hagaajiyo dadku uu hagaajiyey ilaa qiyaamaha waxay yihiin example lagu dayday yihiin iska daa muslimkiiye wallaahi gaaladii baa markay siirada cumar ibnu khataab akhristeen waxay yidhahdeen ninkaasi hadduu mar labaad adduunka iman lahaa mashkiladda caalamka taalla isagoon baa xallin lahaa bay yidhahdeen gaaladu oo cumar faaruq radia allaahu canhu walaal dadkeennaan dhisaynaa diin baan ku dhisaynaa dacwaddaan ku dhisaynaa iimaankoogaan dhisaynaa aqoontooda diineed baan kor u soo qaadaynaa intay doonay hay naga qaadato 50 sano ha kaa qaadato 100 sano ha kaa qaadato laakiin jiil inaga wanaagsan waa inaan ka tagnaa inagu mithaal inteena halka fadhida aabbayaashan allah u naxariista intay dhimatay abiin dhahda xagga dadnimada ma inaga wanaagsan mise inaga ka wanaagsan sidee kaaga wanaagsanay bal sheeg been may sheegi jirin ballan hadday qaadaan kama bixi jirin qabyaaladii casabiyad may oqoon dhiig muslima xaq darro kumay daadin jirin dad waxay haayeen marti hadday u timaadana halkaa ku qaada bay haayeen culammadooda iyo akaabirtoodana way jeclaayeen dadnimada haddii la eego waxaa la eegaa dhismaha iyo aalaadkan ha eegine xagga qiyamka bini'aadantinimada eeg jiilba jiilkii ka horreeyey baa ka khayr badan ogow haddaba innakii haddaan maanta aan arkayno in mujtamacii dhallinyaradii u badnayd ay sii xumaanayaanay sii liitaan oo aabbo walba ubadkiisii u arkayo oo khatar ku sii socda jiilka soo socda 50 sano kadib say noqon doonaan markaas marka maan daawannaa bay kula tahay mise waan dadaalnaa ii sheega yaala waan dadaalaynaa soo ma dadaalayno marka dadaalka dacwaddu waxay ka dhigan tahay war dadka aan islaaxinno waqtiga inagu dheeraan waa annaguna waa iska hadal badan ee raalli ahaada qolada tabliiq waxaa la yidhaha waa iska hadlaan moogtahay badeecadda keliyan wadnaa in ummadda u sheegnaa waa hadalkaana markaan sheegayno wallaahi dadku hana gartaan oo hana bartaan oo sheekh hana yidhahdaan sheekhiina ma nihin ugama jeedno waxay naga tahay ilaahay dartii in annaguna ilaahay ugu dhowaanno dadkuna ay fahmaan war dadka inaan dhisnaan maanta uga baahi badannahay wax walba allah inagu anfaco wasala allahu calaa sayidina